السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء channel كيغا نيغو أفاضمو هاداد ميشان كو عصب تاهي كسو دواء وهادا هوري وجورتن كسو دواء قاعمة فرن قلبي سافي هايدين كسو دواء هادو إلهي راهدو maanta videogeen wuxuu ku saabsan yahay inaad ibaratiin aniga oo like isku kiina baro hadduu ilaahay yiraahdo. So magacayga sida hore u taqaanay waxaa la dhahaa Faadumo, waxaan ku noolahay wadanka Mareykanka alxamdulillah. waxaan inta imaaday labadii you know what af Soomaali taan isku dayay because ma ku dhigi karay 2006 I think so 2006. So waqtigaas meeshaan imaaday alxamdulillah. waxaan haystaa 5 ciyaal ma sha Allah, ilaahay dhaaf intii haysan ilaaha siiyo. gabadheedu weyn waxay jirtaa 14 sano, wiilkaygu wuxuu jiraa 13 sano, gabadheedu kale waxay galaysaa 9 sano in July hadduu ilaahay yiraahdo. wiilkayga kale wuxuu jiraa 5 sano, gabadheedu yar waxay jirtaa 2 sano, waxay galaysaa bisha soo socota insha Allah June waxay galaysaa 3 sano hadduu ilaahay yiraahdo. So horay nina hore isku qabnay oo wiil Soomaali hore isku qabnay on kala tagnay 2 ciyaal aan dhalay alxamdulillah. haddana wiilka waxa qabo wiil nin oo wadankan u dhashtay Mareykanka ay qabo oo waxaan isqabnaa sanadkan waxay noo noqonaysaa hadduu ilaahay yiraahdo 12 sano ayaan isqabnaa. da'deedii waxaan rabaa waa idin sheegi karaa da'deeda aan dadka da'da qarqariyo ma ihi, laakiin waxaan rabaa idinka inta meesha ku jirto inaad qiyaastiin meeqa sano ayaa igu qiyaasi lahaydeen inaa commentka kusoo qora please, I wanna know. And then after commentka kusoo qortiin insha Allah qofkii jawaabta saxda bixiyo qofkaas aniga like tusaayo like waa kusoo qoraya insha Allah meeshaan kusoo qora hadduu ilaahay yiraahdo. marka ninka hadda iqa waxaan u dhalay 3 cunug alxamdulillah. saasay ilmahayga 5 ku yihiin ma sha Allah. maxaa kale waa shaqayn jiray, hadda ma shaqeeyo, stay home hooyaa ahay. hadda ma bala shaqayn karo sidaa ogtihiin, laakiin before waa soo shaqayn jiray. markaa Mareykanka ku imaado waan shaqeeyay abto ilaa wiilkayga oo 5 sano markuu gaaray ayaa shaqada kasto slow iska dhigay, and then waa ku naqnaqanay 2 bil 3 bil 5 bil, but hadda ma shaqeeyo, gurigan iska joogaa. stay home hooyaa ahay alxamdulillah. so maxaa kale waxaan jeclahay okay cuntadaan jeclahay. cuntada aniga zaid u jeclahay oo favorite-kayga waa seafood. waxaa laga wadaa intii taqaano way taqaanaa, intaa aqoonina seafood waxa waaye cuntada badda, right? yeah I think so. hadii la isku jawaabo cuntada badda waaye seafood. adduunka waxa cuntada ugu jeclahay seafood waaye. waxa ii soo labeeyo oon jeclahay waxa waaye bariis. yes bariis aadaan bariis u jeclahay. bariis iyo hilib ari is my favorite. laakiin ilmahay hilib ari ma jecla, I don't know why. ninkayga hataa hilib ari ma jecla, wuxuu ku dhahaa lafta ka cabsoonaa, but ani waa jeclahay. waan kariyaa sometimes, always ma kariyo, sometimes waa kariyaa, laakiin badanaa markaan guriga hooyaday aaday iyo meelahaas ayaa kasoo cunaa alxamdulillah. okay colorkaan jeclahay, colorkayga oo aan jeclahay waxa waaye 2 color aan aad u jeclahay. waxaan jeclahay colorka oo hadda ii saaran bluega iyo waxaan jeclahay colorka yellowga aadaan u jeclahay labadaas color. oo kale waxaan jeclaan jiray purple, hadda purple ma jecli. af Soomaali purple maxaa lagu dhahaa I don't know. purple aan jeclaan jiray, hadda colorkayga waxa waaye yellow iyo blue aan jeclahay alxamdulillah. maxaa kale idinka sheegaa qof waxaan iska ahay simple nolosheeda simple waaye. qof like ma jecli stresska, waxa stresska la dhaho waa necbahay. waan isku dayaa inaan stress dhan iska ilaaliyo, sababto waxa waaye bini aadamka maskaxdiisa waa yar tahay. stresska iyo buuqa badanna ma fiicno, maskaxdaada uma fiicno. so stresska ma jecli. drama ma jecli, hadal isku qabsaday iyo qofkaana saan dhahay ma jecli. inta hadda Mareykanka aan ku noolahay ma sha Allah wallahi ma laga yaabo umaleynaa qof inaan isku like
isku dhicin, you know, bini aadan aan leeyahay, shaydaan aan meesha jira, laakiin waxa u maleynahay hal maraan qof isku dhacnay long time ago. That was it. hataa dagaal ma isdagaalin, it was just hadal loo ahay. Laakiin yeah, saaxiib, okay, saaxiib waan leeyahay, saaxiibo waan leeyahay. 3 gabdhood saaxiibadee maasha allah. mid waxay ku nooshahay meesha ani ku noolahay, mid waxay ku nooshahay wadanka labo waxay ku nool yihiin Mareykanka. midna waxay ku no, why I say labo waxay ku nool, no, saddexdooda waxay ku nool yihiin Mareykanka. hal gabadha oo saaxiibadee waxaan saaxiib ahayn since I was 8 years old, 8 jira ahay, ilaa hadda saaxiib aan nahay maasha allah. saaxiib hataa ma la dhihi karo, waa soo kornay. It's like isku guri ma degneen, laakiin isku xaafadaan degneen. haddaa meesha iga arkaysto waa ku salaamay. saaxiibteeda kale, labadeeda saaxiib kale markaa inta imaadan saaxiiba naqanay, not right, markaa inta imaaday adi muddaan saaxiibanahay 5 sano miya 6 sano miya ama saaxiibanahay. soo 3 saaxiib aan leeyahay maasha allah. waa gabdho fiican, aad u wanaagsan, oo si waxa khayrka iyo wanaagga la jecel. waan isku dayaa inaan ka fogaado dadka oo dramada markan oo negative-ka ku keenayo, hoos ku celinayo. waan isku dayaa inaan xariir la yeelanin, oon jaro, oo like you know, ma rabtid adiga ahaan nafsadaada qof hoos ku dhigayo. so yep. waxaan jeclahay gym, waan aadi jiray gym markii oo waxaan intaysan bilaabanin, waan aadi jiray. my favorite thing is waxa waaye inaan workout sameeyo, waan jeclahay. My second favorite thing is cooking. yes, inaan wax kariyo waan jeclahay maasha allah. wallahi, can you guys believe like me, aaminaysiin markaa teenager aan ahay wax ma karin jirin, okay? markaa teenager ahay wax ma karin jirin. so haddana maasha allah, I think just because hooya ahay waan bartay. yeah, I mean waa jeclahay inaan wax kariyo. maku dhaha inaan wax like baking, like wax oo sida macmacaan iyo waxaas ma ku fiicni, laakiin wax kariska kale waa ku fiicanahay. waa jeclahay inaan wax kariyo. okay, maxaa kaloo jeclahay? I like inaan baxo vacation, inaan aado waan jeclahay. aad iyo aadaan u jeclahay inaan vacation aado, oo guriga ka baxo. what else aan jeclahay? yeah, I think intaas waaye. yeah, like sida idin sheegay, my life is very simple, nolosheeda simple waaye. ma ihi dadka oo like okay, like dadka ma ihi oo guriyaasha. okay, let's talk about guriga. dadka ma ihi gurigeeda jecel, like over like inaan zaid u sharaxo gurigeyga ma jecli. gurigeyga is very simple, you know, ilmaha joogaan, it's just kids friendly, you know. beri ilmaha way weynaanayaan, way baxayaan, so I'm just enjoying. and then what else I love is waxaan jeclahoo kale, oh yes, Ramadan is my favorite. Eid is my favorite. maxaan kaloo jeclahay? I love spending time with family inaan waqti la qaato waan jeclahay, oo waqti spend gareeyo, sida ninkeyga cidiis oo kale, mise hooyada iyo walaalahay oo kale. waan jeclahay. waxaan kaloo jeclahay, yes, I love inaan dad wax u kariyo oo gurigeyga imaadaan. inkastoo ani maanta waalidkeyga ani saacad isku jirno iyo walaalahay, saas ay tahay way ii imaadaan. I really appreciate inta ii imaanin ka baxa janaalkeyga. inta ii imaado is ogyihiin. waan jeclahay inaan wax kariyo oo dad waco, like you know, gathering. I love it. but hadda ma la sameyn karo maadaama viruska in balaayadan socoto. ilaah dhinaca naga geeyo. yeah, so waakaasa guys, waa ibarateen. okay, like cunto markay imaado dhinaca cuntada I like yeah, cunto waa idin sheeg. dhinaca oo cabitaanka juice ma cabi. biyaha la qasay waa laga yaabaa inaan cabo ramadaankii oo kale. juice iyo waxaas ma jecli. biyo cad is waxdii coffeegeyga aan cabaa. that's it, all day alone biyo cad aan cabaa. okay. weightkeyga waxa waaye 120. you know, before waxaan ay bilaaban iskoolka markuu ilmaha u furnay waxaas, I was only 115. 5 pound waxay igu kortay 2 bilood. it's just crazy, but waa la dagaaltamooyaa. don't worry. what else? yeah, that's all. like yeah, intaas waaye. marka haddaad video aan ka hesheen, please give a thumbs up. insha allah video kale waa idin soo wada hadduu ilaah yiraahdo, oo idin sheegi doono more. haddii aad rabtiin wax kale inaad ogaatiin,
let me know insha allah hadduu ilaah yiraahdo. Asxaabta waa kaasaa barasho wanaagsan. waa aad iyo aad u mahadsantiin sida ay igu soo dhaweyseen youtube-ka. wallahi isma dheheenin like meesha hadda heerka maanta gaarsiisanahay dhinaca youtube-ka gaaraysaa mis dheheenin, you know. always waa raba inaan youtube sameeyo, but waa like I don't know, I was just not comfortable, but hadda alxamdulillah comfortable ahay. inta qof igu xariirtana maasha allah, they all are good people. aada u mahadsantihiin, khayr caafimaad idin rajeeyay. yeah, video meeshaan kusoo gabagabeynaa. I don't know waxa kale tan age kana idinka wada sugaya insha allah. inta inaa iisoo sheegtiin meeqa sana igu qiyaasaysiin hadduu ilaahay yiraahdo. inta taqaana meeshaan kusoo qorinaya, inta ay aqoonin aan rabaa inay qiyaasto, inay qiyaasaan meeqa sana jiraa hadduu ilaahay yiraahdo. okay asxaab, khayr idin rajeeyay. mac salaamo, bye.